Labada dhinacba saaka xaalad dagaal oo hubanti la'aan ah ayay u diyaar garoobeen, waxaana muuqanaysa in la qaadayo tillaabadii ugu dambeysay ee lagu gaarayo labada gactama, halka dhinaca kalena uu u diyaar garoobaya qaadista tillaabadii ugu dambeysay islamarkaana uu ku gaarayo laascanood, waxaana labadaasi ay tahay kaaf iyo kala dheeri subaxnimadan is horyaalla. Dhinaca kale, gudoomiyihii cusbaa ee golaha wakiilada cirka iyo dhulka midna ma jiro, waxaana laga bedelay ciidankii horey u ilaalinayay. Gurigiisa waxaa ku hareeraysan dad hubeysan oo baangado iyo sidoo kale bustoolado wata, waxayna isha ka fiirsanayaan habkii iyo qorshihii ay gudaha ugu geli lahaayeen si ay mar uun bannaanka ugula baxaan. Waxaana ugu badan laba beelood oo dega Gabiley iyo sidoo kale Burco kuwa xilligan sida gaarka wax u doonaya. Waxaan idiin soo gudbin doonaa jahwareerka culus ee haysta mas-uuliyiintii ku sugnayd laascanoodna kasoo jeeday ee Hargeysa iyo qaarkood in ay suurtagal tahay inay iskaga baxaan, balse ilaalo gaara ayaa laga hayaa oo aan loo ogolaan doonin in ay si nabadgelyo u tagaan. Waa cabaashaha labada qori u dhexeeya iyo sidoo kale ciidankiisa oo jahwareer u haysto. Halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee labada dhinac. Hubkii iyo saanadii lagala wareegana hal mas-uul ayaa lagu wareejiyey, iyadoo weliba arrintaasi aynan ku qancinin Siciid Cabdulaahi Deni iyo mas-uuliyiinta kale. Qodobada kale ee warkeena aad ku daawan doontaan warbixinteena ku dul istaagi doona waxaa ka mid ah halka uu ku dambeeyo wasiir jaamici wasaaradda gaashaandhigga hogaaminayay ee dusha ka eeganayay muddada dheer sida loo xasuuqayo ciidanka qaranka. Qaybaha dambena waxaanu dul istaagi doonaa sida ay xaaladdu tahay deegaanada ku hareeraysan magaalada Ceelbuur. Program page-ka una shirgaree muuqaalkan saaxiibada dhambaalka wararka. Aanu ku bilownaa sida xogtaba aad ku helaysaan, aanan ku helaynana waxaa soo ifbaxaya laba arrimood oo waaweyn oo kala ah in ka hor inta aan maxkamad la soo taagin islamarkaana uusan marin cadaalad in la qaado tillaabooyin isdaba joog ah. Waxaana saacadihii ugu dambeeyay ruqaansaday kadib markii hanjabaado badan iyo weliba culays ciidan la dul saaray ciidankii xoogagga militariga SAC, kuwaasoo sheegay in ay gudaha u geli doonaan dhammaan deegaanada xilligan colaadda laga soo abaabulayo, kadib markii ay ku war heleen in dhammaan ciidanka kusoo jihaysan ay yihiin kuwo ka ballaaran intii hore kana tiro badan. Waxay go-aansadeen in ay cagta dhigaan deegaanka lagu magacaabo labada gactama, halkaasoo noqonaysa fariisinka iyo xuduudda dhabta ah ee u dhexeysa labada dhinac. Taasi waxay abuureysaa in laga takhaluso og oo xilligan fariisinka culusa iyo weliba sidoo kale Caynabo, waxaana ay fariisimo kale iyo furimo kale ku abuureysaa Somaliland oo markaan muruq iyo maalba iskugu geysay og si ay u qaado tillaabo kama dambeysa. Habarwacashada iyo qeyladhaantuna ay gaartay ilaa gobolada dowladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale Jabuuti. Waxaa intaasi sii dheer in aan weli lahaynin saanadii dagaalka iyo sidoo kale hubkii cuslaa ee lagu bedeli lahaa midka gacantooda ka baxay. Saacadihii ugu dambeeyana waxaa weli hortaagan ciidanka oo marada ruuxaya isimada iyo sidoo kale maamulka cusub, kuwaasoo ku wargelinaya in la joogo gumays oo aan shisho looga gudbin, balse waxaa markaani baxsadkii ugu koowaada dhalinyarada iyo weliba kuwa doonaya inay ka jawaabaan fariimaha ka imaanaya dhinaca Somaliland. Dhanka Somaliland waxay iyaguna haystaan amar ah in ay gudaha u galaan islamarkaana ay dib u soo celiyaan magaalada Laascanood ee gobolka Sool. Waana laba aragtiyood oo ah kaaf iyo kala dheeri, islamarkaana waxaa guuleysan doonta midda muruq iyo awood badan islamarkaana maquunin karta midda kale. Dhinaca kale haddii aanu eegnana warar isi soo taraya ayaa muujinaya in xaalad cakiran oo ku jiro gudoomiyihii golaha wakiilada ee dhowaan la doortay Yaasiin Xiir Faratoon, kaas oo laga bedelay ciidankii horey u ilaalinayay islamarkaana lagu kordhiyey ciidan cusub oo dheeraad ah oo ka tirsan militariga, kuwaas oo si gaara u ilaalin doona gudoomiyaha iyo sidoo kale gurigiisa iyo ehelkiisa. Waxaana hortuman islamarkaana gaaf wareegaya
dhalinyaro bastoolada ku hubeysan iyo sidoo kale hablo baangada wata, kuwa oo doonaya in mar sidii haadi ay ugu degaan oo ay u jarjaraan dhammaan wixii guriga jooga. Waxaa iyaguna xaalad cakirin ku jira oo kasoo bixi la hodheelada iyo goobaha ay joogaan wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano deegaan ahaan kasoo jeeda SSA, balse u go-ay Muuse iyo kooxdiisa islamarkaana si gaar ah u arka in ay yihiin kuwo aan sinaba kaga bixi karin kagana hari karin in biyo kaba dhibcaanta ay isdhiibaan oo ay aadaan Khartoum oo xoog badan markaan birtana ka dhigtay maamulkii Muuse Bixi. Wararka soo baxaya ayaa muujinaya in xubnaha qaarkood laga hor istaagay in ay u baxaan dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida, islamarkaana lagu wargeliyay in ay joogaan Hargeysa. Waxaa iyagana loo diiday in ay baxaan oo ay dalka dibadiisa ay u dhoofaan qaar ka mid ah xubnaha haysta baasaboorada ajaanibka ah, kuwaas oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale xubno kale kuwaas oo doonayay in ay dalka dibadiisa iskaga ambabaxaan, balse dhammaantood waa loo diiday. Waxaana lagu wargeliyay in amnigooda ay la wareegtay xukuumadda. Waa maxaabiis nool oo la daajinayo islamarkaana joogta guryaha iyagoo weliba xabsi guri furan ku jira. Sidoo kale waxa ay noo xaqiijinayaan wararka aanu helayna in amarada kasoo baxaya taliska guud ee madaxweyne Muuse aynan ogolaaneynin wax dhaqdhaqaaq isdhiibid ah. Waxaa sidoo kale asagana ciidan lagu hareereeyay lagana bedelay ciidankii hore ee ilaalinayay Generaal Mahad Cabaashi oo asaga rajadiisu iyo sidoo kale noloshiisu ay ku xiran tahay guulaha uu kasoo hooyay dagaalka maanta uu qorsheynayo in uu dib ugu celiyo ciidamada. Waxaa u dhexeeya laba qori oo iska soo horjeeda, waxaana noqon doontaa in uu meel fog ka hago dagaalka iyo howlgelinta ciidanka. Haddii jiida hore uu tago, waxaa suurtagal ah inay madaxa ka toogtaan ciidanka uu la safan yahay ee careysan. Waxaana weli muuqanaya dadaallo ay doonayaan hay'ado caalami ah in ay ku aruuriyaan meydadka waran qaybo kala duwan oo ka tirsan deegaanada gobolka Sool, kuwaas oo ay aruurinayaan hay'ado kala duwan oo Bisha Cas ay ka mid tahay, si ay u asturaan islamarkaana u geeyaan goob gaar ah oo meydadkaasi la geeyo. Dadaalka hay'adda ayaana saacadihii ugu dambeeyay ahaa mid si laba jibaarmayay, iyadoo weliba si gaar ah loogu wargeliyay dhammaan dhinacyada kala duwan in ay dadaal ku bixiyaan oo ay ka howlgalaan sidii loo badbaadin lahaa deegaanka, islamarkaana looga fogaan lahaa in ay cudurro ka dillaacaan ama saameyn ay yeeshaan ilmaha dadka ee waran meel kasta. Dhanka kale aanu eegne, waxaa isi soo taraya fariimaha kala duwan ee ka imaanaya dhinaca taliska guud ee militariga Soomaaliya, iyadoo saacadihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar muujinaya in khilaaf uu ka dhexeeya taliyaha guud ee ciidanka militariga iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Jaamac, kaas oo ku sugan aagga magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Waxaana taliska guud xoguhu ay tilmaameen in lagu wargeliyay ciidanku inay iskaga soo baxaan furimaha dagaalka inta laga bedelayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo la keenayo wasiir la shaqeyn kara wasaaradda, leh khidad ciidan iyo weliba tababarkeeda iyo aqoonteedna. Waxa ay ku wargeliyeen ama lagu wargeliyay ciidanka inay dib u gurasho ay ka sameeyaan Cawsweyne iyo sidoo kale Ilaalaas, waa ilaa Ceeldheer iyo Ceelbuur iyo meelo kale oo ka tirsan gobolka. Inkastoo madaxweynaha Galmudug iyo weliba wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ay socdaal ku tagayaan Ceelbuur iyo deegaanada ku hareereysan, haddana warar isi soo taraya ayaa muujinaya in cabsi weyn ay ka jirto aaggaasi lana xiriirta in ay cutubyada ciidanku ay dib u gurtaan. Kooxaha hubeysan ee dhowaan jabiyay ciidankii ku sugnaa Cawsweyne ayaa waxa ay doonayaan in ay isku sii ballaariyaan deegaano kale, iyadoo weliba la xaqiijiyay in ilaa 9,000 oo ka mid ah kooxaha arbushayaashu ay diyaar u yihiin in ay usii ruqaansadaan deegaanadii dhowaan laga qabsaday, iyagoo weliba qaadaya weerarada arooriyeysiga ah ee ay hor socdaan gawaarida tirada badan ee qaraxyada, taasoo u suurtagelisa inay cagta mariyaan beebayaashii iyo gaadiidkii dagaalka ee cuslaa ay wateen ciidanka dowladda federaalka, kuwaasoo laga baabi'iyey gaadiidkii ay ku socdeen ee ogolaanayay in dagaalka lasii wado.
arrintaas oo ahayd mid walaac ku abuurtay guud ahaan dunida, si gaarana u saameysay dowladda federaalka iyo sidoo kale taliska guud ee ciidanka militariga Soomaaliya. qaybta hoose aragtidaada nagu reeb kuna xirno wararka dhambaalka wararka nabadgelyo.